madaxweynihii aanu haweynayn oon islahayn dalka iyo dadku samata bixinaya maalina waa sii socdaa maalina waa soo socdaa dalka amni kama jiro macluul baahsan ayaa ku dhufatay gobolada dalkeena dhaqaalihii dalkana dhulka ayuu galay madaxweynuhu u jooji maayo ma basal dhiganayaba madaxtooyadii villa Soomaaliya maantuu yimid barituu laabanaya waxaan rabaa inaan dul istaago safarada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo weliba badbaadada dalkeena iyo dadkeena maanta ay u baahan yihiin yaa muhiimsan in aynu qancino Kenya iyo in aynu sugno amniga magaalada Muqdisho yaa muhiimsan inaynu u damaashaa tagno oo aanu dhahno xiriir kala go'ay wadan hebel iyo Soomaaliya ayaan toosinaynaa xilli dhaqaalaha wadanka uu dhulka galay falayd walba ama safar kastoo madaxweynuhu ku baxayana waxaa ku baxa lacaga aad u fara badan aaway ballantii madaxweynaha jamhuuriyadda uu qaaday markii uu soo arkay dad Soomaaliyeed oo abaartu ay daashatay oo baahan soo madaxweynuhu ma oran yaa la damaashaadin 26 Juun iyo 1 Luulyo lacagta aan ku damaashaadi lahayn dad baan wax ugu qabanaynaa safarada uu maanta ku ababaxay oo aad moodada in xarkihii safar lama oran karo tani waa arrin xad dhaaf ah waxaa ku baxaya lacaga aad u fara badan meeyay ballantii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed uu ka qaaday warbixin xasaasi ah iyo barnaamij kulul ayaan bilaabay waana barnaamij aan ku iftiimi doono runta rabbi baa igu jecel waana mid aan shalay ku taagnaa maanta aan ku taagnaan doono ujeedada aan ka leeyahay waa dal toosan iyo shacab dowladnimada u hagaagsan laakiin shalay iyo maanta inaan daboolo hayga sugin dhaqankaasna horey uma lahay soo dhawaada muuqaalka sii sheegayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu kursi doon ahaa ama ka mid ahaa xoogagga musharaxiinta wuxuu aad u dhaleeceyn jiray madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuuna ku tilmaami jiray inuu yahay shakhsi siyaasiyiinta oon xitaa fikradahooda dhegaysan maanta madaxweynaha jamhuuriyadda halkee buu ku iloobay raggii saaxiibadii ahaa oo qaarkood u tanaasulay tartankii madaxweynaha raggii codadka ugu deeqay madaxweynaha tartankii madaxweyne inta lagu jiray 15 bishii tagtay 2022 aaway dadka ma aragteen asagoo kulan la qaadanaya wixii ka dambeeyay hal maalin oo isku keenay iska daa inuu la kulmay xitaa telefoonka kama qabto madaxweynuhu waxa uu la soo baxay dabeecad aan lagu aqoonin oo dadka ku dhadhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay sheegeen inuusan xitaa waagii uu waxbarashada ama guddiga waxbarashada ka mid ahaa inuusan xataa dhaqankaan lahayn taasoo ah in qofka ugu dhow ee shalay abaalka u galay inuu dhabarka aadiyo maanta xaaladdu waxay maraysaa in ay siyaasiyiintu leeyihiin xitaa inuu telefoon ka qabto la hadlo ragga codadka ugu deeqay ee madaxweynaha gaarsiiyey inuu 214 cod uu hoggaanka ku qabto doorashada dalka maanta codsigoodiina lama aqbalin kulankoodiina waa la diiday waa maalin madaxweynaha xaaladiisu waa la socotay marna COVID-19 oo u karantiilan yahay marna waa la sii socdaaba ma sal dhiganayo maxaa shalay marka farmaajo uu ka sheegay siyaasiyiinta ma dhegaysto annagu xaqaan u leenahay inaanu dowladda fikrad ku darsano aaway wixii shalay ummadda Soomaaliyeed u sheegay meeyay fikradihii uu shalay lahaa waa in siyaasiyiinta laga dhageystaa maxaa ahay intaa waxaa ka sii daran madaxweynihii waa saldhiga laayahay maantuu ka yimid safar barintana safar ayuu aadayaa amnigiina faraha ayuu ka baxay caasimadii uu ku shaqaynayay amni maaha xitaa waxay maraysaa caasimadii Soomaaliya in la samaysto ciidamo beeleed lagu difaaco degmooyinka gobolka Banaadir iima muuqato runta marka laga hadlo amni la isku halayn karo oo maanta laga sugayo dowladda madaxweynihii maanta waxa uu dalka gaarsiinayaa 70 maalmood in ka yar in dadku ay samaystaan ciidamo beeleed maxaa ahay war madaxweynuhu miyaynan u kala muhiimsanayn qancinta Kenya iyo badbaadada muwaadiniinta Soomaaliyeed war yaa noo muhiimsan aan runta isku sheegno yaana runta laga baqin yaana runta laga caroon yaa runta loo arkin dana gaar anigu nin dana gaar ay yeeshanay shalay ma ahayn haddana ma ahayn albaab walba on shalay anigu furayay waxaan u furayay badbaado iyo weliba qarannimada dalka oo la ilaaliyo uma furayn dana gaar iyo shakhsi gaar waxa uu leeyahay inaan u ceeb asturanahay sugin wixii shalay dhaqan ii ahaa oo ahaa run sheegid ayaad iigu imaanaysaa waa laga yaabaa inaad xanaaqdo dhaqan aad u leedihiin waan ogahay shacabkaygu waa waxa weeye ka wanaagsan iyo ka xun intaba waa dad aan jeclahay waan ogahay dadka qaar waxay leeyihiin balwan waa la iibsaday shalay aniga afkayga laguma xirin lacag mana lagu xiri doono haba iga sugin inaan asturo oon dadkayga ka soo horjeesto oon qof ceebtiisa asturo oon noqdo ma liibaane lagu liibaanay haba iga sugin shalan dhaqan uma lahayn maantana bali
waxa ay dhibaya hooyada muqdisho degan oo amni darro ku nool war ilaahay baan idinku dhaariyay dhulka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka soo jeedo ee ka mida degmooyinka ama ay dadkiisu u badan yihiin maanta ciidamo beeleed ay samaysanaya waa kaa boqorkii xaaji muuse suudiye uu qayla dhaaminayo uu leeyahay nin walba inuu qorigiisa qaataa caaway madaxweynihii shalay marinaayo lagu soo dhaweeyey madaxweynihii shalay kaaraan looga mudaaharaaday maanta gabadh mudaaharaadkaasi ka qayb gasha mobayl kuma qaadan karto dhulka deegaanadii uu shalay joogay ma runtaasaan ummadda soomaaliyeed ka qarinaa waxaa kaaga sii daran marka wuxuu yidhi markuu xilka qabtay dadka tabaaraysan ama abaaruhu ay daashadeen waa inaan u damqanaa buu yidhi isagoo jooga maamulka koonfur galbeed deegaano ka mid ah adigaa og muuqaalkuna internetku ku jira wuxuu yidhi lama dhigi karo 26 juun munaasabadaha dabaaldega maalinta qarannimada wuxuu yidhi kowda luuliya looma dabaaldegi karo lacagta lagu dabaaldegayo waa in lagu bixiyaa buu yidhi badbaadada dadkaas waxaan islahayn alla ilahay madaxweyne soomaaliyadoo dhaban haddaa la helay iska daa in lagu caawiyee bartii shalay gurmadka abaaraha uu marayay ayuu hadda kasii hooseeya asagiina diyaaradda uu ku tegayo turkiga uu ku tegayo imaaraadka uu kenya ku tegayo uu ku tegayo dee tanzania uu ku tegay eritrea diyaarad kastaba lacagaa ku baxaysa madaxweynihii marka anaga naga joojiyey kowda luuliya iyo 26 juun lacagta uu ku bixinayo falaydadaasi miyaysan xaq u lahayn dadka abaaruhu ay daashadeen war sideebuu dad u qanciyaa madaxweynaha jamhuuriyadda dadkiisii qayb ka mida baahi bay u dhimanayaan qaybna amni daro maxaa qaldan waayahay safarada uu madaxweynaha ku tegay hal safar ayaa faa'iida ka lahaa waa safarkii uu ku soo arkay indhihiisa inkastoo halkaa ceebe ay ka dhacday laakiin annaga muhiim waxaa noo ah dadkeena inay bad qabaan wixii ceebo halkaa ka dhacay dee waxa weeye nin kastoo kursi raadinayo wuxuu doona iska sheegaa laakiin inuu dhalinyaradii 5,000 dhalinyaro uu soo arkay madaxweynaha intaas keliya faa'iida ka lahayd 7 safar ee madaxweynaha miyaysan ka habbooneen inuu madaxweynuhu intuu safaradiisa dib u dhigto sugidda amniga iyo badbaadada dadka abaaruhu daashadeen uu waqti geliyo miyaynan ka sharaf badnayn qancinta kenya inuu ka hormariyo qancinta shacabka soomaaliyeed ee loo dhaariyey war mudane xasan sheekh maxamuud ma soomaaliya u dhaarinay mise waxaan u dhaarinay kenya inta uu u damqaday dalka kenya miyuunan xaq u lahayn madaxweynuhu inuu u damqado shacabka degan kaala shacabka degan warhigley shacabka degan hor shacabka degan madiina shacabka degan yaaqshi war ciyaal weero waxaa soo baxay dadkii baabax ka siiyey maanta waxaa leeyahay madaxweynihii tanzania uu tagayo east africa bariga africa ayaanu ka mid noqonaynaa war maxaan bariga africa ka mid noqonaa dalkiiba dhulka ayuu maraya muddo ka yar 7 maalmood ayay muqdisho waxay ku dhowdahay in ay noqoto meel la kala xirxirto madaxweynihii waa safar waxaan kala garan lahay marka madaxweynuhu yuusan shacabkiisa u damqanayn maxaa dhahay shalay wuxuu yidhi intii uu farmaajo joogay maxamed farmaajo wuxuu ku qaldan yahay siyaasiyiinta taladooda ma dhegeysto isaga musharaxiintii la tartamay ee codadka siiyey mid uu hataa telefoonka qabto ma jiro annagu waa ka warhaynaa wax badan oo shacabka soomaaliyeed aynan ogeyn ayaan ognahay ma xushmeeyo ma qadariyo musharaxiintu waa yaabay xasan shiiqii ballanta lahaa xasan shiiqii dee siyaasaddiisu furfurnayd xasan shiiqii ku wanaagsanaa xiriirinta siyaasiyiinta maanta wuxuu noqday shakhsi aan adiguba arkay waxaa la yaabanaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre mar dhahayay maxaa galo wasiirra magacaaba madaxweynihiyaabaan arki lahay xamse cabdi barre baan arki lahaa madaxweynihii jamhuuriyadda maxaa dhacay maalinna waa karantiilan yahay maalinna wuxuu kusii socdaa safar waxaan rabaa marka muhiimadda hadalka madaxweynihii aan uhan weynay oon islahayn dhibkaa looga baxaya maanta dalka meeshuu marayo waad ujeedtaa maanta dalku meeshuu marayo waad ujeedtaa amnigii caasimadda keliya ma aha gobolladii waddankaa saas ku qasan shabaabkiibaa meel walba weeraraya maxaa marka faa'iide ah oo ummadda soomaaliyeed ay ka dhaxashay doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaan ka dhaxalnay ma waxaan ku faanaa iyadoo muqdisho aysan amni ahayn madaxweynihii door muhiim uu ka keenay tanzania iyadoona muqdisho nabad ahayn miyaan ku faanaa kenya u qanciyey aaway heshiiskii kenya lala soo galay aaway war maxaa laga hirgeliyey jaabka uunbuu ku salaysnaa jaabkiina waa fasax war aaway natiijadii laga soo faa'iiday ee kulankii uu ku tegay dalka imaaraadka carabta maxaa laga keenay war aan isku miisaano safarada madaxweynaha waxyaabihii uu soo faa'iiday iyo khasaaraha ka dhacay gudaha dalka aan isku miisaano
aqligu inuu shaqeeyaa muhiima aniga waxaad igu imaan doontaa war xaqiiqa ah oo aan biyo kama dhibcaana oo aan ku iftiri doono xaqiiqda dhabta waa laga yaabaa qaar ka mid a daawadayaasha inay yidhahdaan balwaan waa la iibsaday anigu shalay mowqif baan taagnaa maantana waan taaganahay mowqifkayga shalay runta aan ku sheegay ayaan haddana ku taaganahay allahay ka alle maalin kale ceeb u asturi maayo ilaahay baa nale runta ilaahay baa igu jecel ceeb dambe oo aan u asturaya ma jirto qof kasta oo Soomaaliya wuxuu xaqiiq u arkayo ayaa hortiina keenaya saana madaxweyne aan sadkaba dhiganayna 7 maalmood 7 safara amnigii muqdisho faraha ka baxay war ma jirto xiriir xataa arrimo siyaasadeed oo siyaasiyiintii la soo shaqeeyay maxaa dhahay ma intaasan astura ma kaaraan oo mobilka lala mari karina amaana haysu ma noqon shalay mana noqon doono ma liibaanay lagu liibaanay runtan iftiimaya dhawaana waxaan soo bandhigi doonaa barnaamijyo istabajooga oo aan uga hadli doono arrimaha xasaasiga ah ee dalka ka jira waxaad iga daawanaysaa hadda Facebook page-ka Cabdullaahi Balwaan halka aad mar walba iga daawan doonto waa meeshan waa page-kan Facebook Cabdullaahi Balwaan isbarbardhig muuqda ayaan bannaanka keeni doonaa waxaan ka dhaxalnay 15 May waa dadka u baahan runta inay ogaadaan igu soo xirma runta shalay waan ku taagnaa maantana waan ku taagnaan doonaa marka 15 May wixii laga dhaxlay waa barnaamijyo taxan ah halkaan ku soo bandhigi doonaa page-kan meeshan ayaan ku soo bandhigi doonaa qof kastana sida dhaqanka ii ahaa farahaaga waa xor adoo caytamaya xataa wada daawan kartaa intaad adiguba daawanayso inaad dhegaysanaysaa ii muhiima farahaaga shaqo ku malihi ma ahid nin dhaqan u leh waqtiyada uu life ku jiro sidan oo kale inaan idhaahdo hebel waa balogoreynaya maqaayadan aan iskala shalay dhaqan uma lahayn maanta u malihi laakiin hayga sugin inaan ceeb damba u asturo maxaa dul qaadana natiijo xumo safarkii qatar safarkii imaaraadka safarkii turkiga safarkii kenya oo weliba 100% ay ka dhacday meesha waxyaabo aqligu u diiday maanta kadib allahay ka alle runtan u soo bandhigaya ummadda xaqiiqadan tusaya inaan ay asturaya ma jiro walaalkay walaashay haddaad igu nacayso runta waad igu nici kartaa farahaaga ala iskale farahaaga waa xor anigu waxaan danaynayaa waa indhaha iyo dhagaha inta barnaamijka midda ku kulmi doono daawaday meel kale iyo daawa karaysid Facebook kale diga daawa karta malaha kaliya waxaad iga daawan kartaa Facebook page-kan Cabdullaahi Balwaan meel kale diga daawa karayso malaha inta barnaamijka midda ku kulmi doono waa balwaan oo idin meel kasta oo joogtaan nabadgelyo